kulan wanaagsan daawade halkan waa Elwareed News haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saaro like tan noo muuqaalada aan soo gelino dhiirigelinaya inoo tahay waad ku mahadsantahay la socoshadaada waxaan ku soo gudbin doonaa wararkii u dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo caalamka muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdilaahi Dani oo shir degdeg ah ku yeelanaya magaalada Nairobi muxuu yahay shirkaasi maxay kaga hadli doonaan ayaan kugu falanqeyn doonaa muuqaalkan aad ku daawan doontaa sidoo kale waxaan kugu soo gudbin doonaa mas'uul ka tirsan maamulka Hirshabelle oo lagu dilay magaalada Jowhar yaa ka dambeeyay dilkaas faahfaahin ka soo baxay rag loo soo qabtay ayaan kugu soo gudbin doonaa sidoo kale faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya hoobiyaal lagu weeraray xirada Xalane ayaan ku soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaa iyo diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan hogaamiyaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa la filayaa in haatan shir degdeg ah ay ku yeeshaan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya iyaga oo ka arinsan doona xaaladda dalka iyo sidoo kale khilaafka kala dhaxeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sida Elwareed News ay ogaatay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa goordhow ka baxay magaalada Boosaaso isagoo oo markaasi u duulay Addis Ababa kadibna uga sii gudbi doona magaalada Nairobi uu markaasi hadda ku sugan yahay hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Elwareedyo xilkas ah ayaa waxay noo sheegeen in markaasi labada mas'uul ay markaasi soo arki doonaan kadibna ay ka yeelan doonaan kulan gaar ah oo ay uga hadli doonaan xiisadda taagan Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdilaahi Dani ayaa horey u kala tagay wixii ka dambeeyay doorashadii Soomaaliya waxaase haatan ay wajahayaan xaalad isku mid ah maadaama labada nin uu markaasi khilaaf culus kala dhaxeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan shirkooda ay diiradda ku saari doonaan sida loo wajihi lahaa dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ay wado Villa Soomaaliya oo ay markaasi ugu horeyso arinta doorashada oo haatan banaanka ay markaasi ka joogaan maamulada Jubbaland iyo Puntland ina Madoobe oo xadii iska xaadiriyay magaalada Nairobi ayaa halkaasi ka wada qorshe ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya isaga oo la shiray wakiilada beesha caalamka iyo sidoo kale saraakiilka kala socday dowladaha Kenya iyo Ethiopia uu markaasi kala hadlay xiisadaha taagan ee isaga iyo dowladda dhex u dhaxaysa sidoo kale wuxuu la kulmay qaar ka mid ah xildhibaanada federaalka iyo sidoo kale siyaasiyiin mucaarad ah ee markaasi degan magaaladaasi iyagoo iska xog wareysanayay xaaladda dalka haddii Dani uu tago Nairobi isla markaana ay arkaan Madoobe ayaa waxa ay markaasi u badan tahay in marka hore ay qorsheeyaan dhabaha cusub ay qaadi doonaan maadaama ay yihiin saaxiibo hore oo kala tagay haddana ay isku keentay duruufta isku midka ah ee markaasi ay wajahayaan Soomaaliya haatan waxa ay ku jirtaa marxalad adag oo siyaasadeed waxaana ishaya dowladda dhexe Jubbaland Puntland iyo sidoo kale mucaaradka kadib markii ay isku fahmi waayeen dastuurka iyo sidoo kale doorashada dalka dhinaca kalena faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dil loo geystay mas'uul ka tirsan maamulka Hirshabelle agaasimihii waaxda arrimaha diinta ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda goboleedka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Cali Dr. Galib ayaa lagu qaarijiyay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle kooxo hubeysan ayaa xalay fiidkii doctorka ku dilay markaasi xaafadda hanti wadaag ee magaalada Jowhar iyadoo oo wararka ay sheegayaan in kooxdii falka markaasi ka dambeysay ay si degdeg ah uga baxsadeen goobta uu dilka ka dhacay Dr. Galib ayaa ka mid ahaa dhalinyarada aqoon-yahanka ah ee markaasi si weyn looga yaqaanay magaalada Jowhar isagoo ka soo shaqeeyay meelo kala duwan oo markaasi la xiriira caafimaadka iyo sidoo kale arrimaha bulshada dilkiisa lama oga cidda ka dambeysa balse falkaasi wuxuu gilgilay bulshada deegaanka oo aad markaasi uga argagaxday dilka agaasimaha laamaha ammaanka ayaa bilaabay baaritaano ay markaasi ku raadinayaan gacan ku dhiglayaashii ka dambeeyay dilka hase yeeshee ilaa iyo hadda lama shaacin cid loo soo qabtay ama markaasi si cad looga tuhmayo weerarkaasi lagu qaarijiyay agaasimaha warbaahinta ayaa markaasi waxaa la xaqiijiyay in ay socdaan howlgallo lagu ogaanayo xogta ka dambeysa falkaasi naxdinta lahaa ee ka dhacay Jowhar wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Hirshabelle xildhibaan Cali Cismaan Ibraahim Cali Ciile ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska marxuumka ehelada iyo sidoo kale dhammaan shaqaalaha wasaaradda wuxuuna sidoo kale faray hay'adaha ammaanka in markaasi la dedejiyo baaritaanka isla markaana cadaaladda la horkeeno kuwii ka dambeeyay dilka war qoraal ah oo markaasi wasiirka soo saaray ayaa lagu muujiyay sida uu markaasi uga xun yahay geerida agaasimaha
isagoo ku tilmaamay shakhsi firfircoon oo kaalin mug leh markaasi ka qaatay arrimaha wacyigelinta bulshada iyo sidoo kale barnaamijyada horumarinta. wasiirka ayaa ugu baaqay bulshada magaalada Jowhar in ay garab siiyaan hay'adaha ammaanka si loo soo qabto dambiilayaashii ka dambeeyay dilka agaasimaha. Dr. Galib ayaa maalmihii u dambeeyay wuxuu ka shaqeynayay wacyigelintii sidoo kale baraarujinta ku saabsan arrimaha bulshada, isagoo kulamo la yeeshay arday iyo macallimiin ku sugnaa iskuulo iyo jaamacado ku yaala Jowhar. dadaaladaas ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa bulshada markaasi looga dhiirigelinayay iskaashiga iyo sidoo kale ka hortagga kooxaha dhibaatada ku haya nabadda iyo horumarka deegaanada Soomaalida. ugu dambeyntiina faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay hubiyaal lagu weeraray xerada Xalane. faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan tiro hubiyaal ah oo markaasi aroornimadii hore ee saaka lagu weeraray qaybo kamid ah degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, kuwaasi oo qaarkood ku dhacay gudaha xerada Xalane ee xeyndaabka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. goobjoogayaal ku sugnaa agagaarka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde waxay warbaahinta u xaqiijiyeen in ay markaasi maqlayeen ilaa 4 jug oo isxigxigay, kuwaasi oo si gaar ah markaasi uga dhacay agagaarka garoonka, waxaana la tilmaamay in jugta hubiyaashaasi ay markaasi abuurayeen cabsi iyo dareen amni darro oo markaasi ku faaftay qaybo kamid ah degmada Wadajir gobolka Banaadir. tirada madaafiicda guud ayaa lagu qiyaasay 6, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn halka ay 2 kamid ah ay ku dhaceen. ilaa iyo hadda lama hayo war rasmi ah oo markaasi xaqiijinaya khasaaraha ka dhashay weerarkani, iyadoo aanay jirin wax war ah oo ka soo baxay hay'adaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ama maamulka ciidamada AWSOM ee halkaasi ku sugan. daqiiqada kadib weerarka ayaa kooxda Al-Shabaab waxa ay sheegatay mas'uuliyadda, iyagoo markaasi fariin ku baahiyay baraha internetka ay ku leeyihiin, taasoo ay ku sheegeen in ay markaasi iyagu fuliyeen weerarkii lagu beegsaday xerada Xalane. kooxdan ayaa hore uga caanbaxday weerareys daba joog ah oo markaasi lagu bartilmaameedsado xarumaha muhiimka ah ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah, iyadoo hore u bartilmaameedsatay xeradan iyo xerooyin kale oo markaasi ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye. weerarkan ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xilli amniga caasimadda Soomaaliya uu soo hagaagayay maalmihii u dambeeyay, iyadoo la og yahay in xerada Xalane ay tahay mid ka mid ah meelaha ugu amniga badan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, maadaama ay hoy u tahay ciidamo badan oo ka socda Midowga Afrika iyo shaqaale caalami ah. weerarka maanta ayaa wuxuu qayb ka ahaa weeraro dhowr ah oo ururka Al-Shabaab ay markaasi sanadkan gudihiisa ay ka fulisay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, gaar ahaan kuwa lagu bartilmaameedsado xarunta Xalane iyo nawaaxigeeda, taasi oo muujinaysa in halista amni ee magaalada ay weli tahay mid markaasi soo taagan. gudahaan warkii waa naga intaa. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saaro, like tan inoo taa muuqaalada aan soo gelino dhiirigelinayno tahay. nabadey.